kulankan oo lagu taageerayay General Sheego isla markaana loogu soo horjeeday koox weerar ku qaaday generaalkaasi xilli uu ku sugnaa qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayadana kulanka ay soo qaban qaabiyeen qaar ka tirsan waxgarad aqoon-yahano dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda gobolkan Hiiraan waxayna si cad ugu soo horjeesteen tilaabadii dhawaan ay qaadeen sida ay sheegeen qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ma in dadkaas ka soo duulduulay oo ayagoo ku taalim ma in dadka ka cabisan dadka wadanka la hoos Soomaaliya hada lagu leeysiiyana dadka heshiiska lagu wada waxaan dawladda federaal iyo generaalada iyo saraakiisha mar walba u cadeynayna waxaan generaalada u sheegaynaa adeerayaal oo looda la jirtaan weylahoodii anaga la jirna iska ilaaliyo looda la jirtiin generaalnimo maaha in siyaasad iyo dal isku jibiyeen ciidan loo hogaansamo iyo in ninka qabiilkiisa jifidiisa oo ciidan ka soo wato waa cambaaraynayna waa ka soo horjeedna waxaan taageero buuxda oo kal iyo laaba u fidinayna hadii aan nahay beesha jareer weyne anoo ku hadlay wili magaca beesha jareer weyne gobolka Hiiraan General Sheego ayaan taageero General Joe وأقوليسنسا اجتهاد كذا وأقوليسنسا والسلام عليكم. وحنا أنا باش جرير ويني وحوي وهالكني وكليه ومارت نوح سيكوبات واي هدي لي 4.5 وهدي شري اللي يجري برجع هذا وحلي 4.5 مجرمية وجرير مجرمية وديدني شيء ونيك كسور جدنا جرير وين هذا هدي وحاس وحكب بدن نروق بالله وأرجعنا وحوي سومال وطنا خلخيل جليسة حقيقة. maanta isku soo banaan baxay anaba laga soo horjeedaa dibkii loo geystay janankii dadkan hadda isku soo baxay waa dadkii oo ka dhashay ninkaas jananka ah waana bahda jareer weyne waxayna ka soo horjeedaan ay cambaareen dush ugu tuurayaan weerarkii loo geystay ma aha in federaal mahaylada haddana laga soo horjeesto marka qof waliba waxaan ku sheegaynaa dawladda federaalka caalamka meel waliba oo muuqaalkan iyo maqalkan laga dhageysanayo waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Soomaaliya hadda heesta Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u sheegaynaa in uu arrinkaasi wax ka qabto dadkaan waa dadkii oo ka dhashay janankaasi janankan waan taageersanahay dibka loo geystay waan ka soo horjeednaa ma aha in la soo adeegsado awood kale iyadoo la soo dawmarayo qof la dhashay federaal lagu shaqeeyaan la dhaho dawladda federaalka faragelinta ee ku hayso dhibaatada جرير وين هجوج الصدق جرير وين هذول ابن آدم عميلا هي أبوكات أنا هي أولا لا هي وإمر يا ألف وأحمد وحاسني عقيسنا جنان شيغو أدقته ولا قشان جيب وحيجو واجرير جملول وحيجو واجرير